ciidamo ka tirsan dawladda Itoobiya iyo dagaalyahanno ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaan ka tirsan degmada Xudur ee gobolka Bakool. wararka naga soo gaaraya degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa ku waramaya in xalay saqdii dhexe ee weerar qorsheysan al-shabaab ay ku qaaday fadhiisimo ay ku lahaayeen ciidamada Itoobiya ee gobolkaasi. weerarkan oo ahaa mid qorsheysan ayay al-shabaab ciidamada Itoobiya fadhiisimo ay ku leeyihiin degmada Xudur ay dhowr jiho kaga soo qaadeen dagaalkaasi. al-shabaab ayaa bogagga internetka ay ku leeyihiin ku baahiyay khasaaraha weerarkaasi iyadoona sheegtay in ay saraakiil ka tirsan ciidamada Itoobiya ay ku dileen, inkastoo al-shabaab ay shaacin tirada saraakiisha ay sheegeen inay dileen. sidoo kale al-shabaab ayaa sheegatay in ay burburiyeen qaar ka mid ah fadhiisimaha ciidamada Itoobiya ay ku lahaayeen halkaasi. ilaa iyo hadda ma jirto ilo ka madax bannaan oo caddayn kara khasaaraha rasmiga ah maadaama uu weerarku dhacay xilli habeen ah. waxaa lagu soo waramayaa in waa berigii hore ee saaka ay ciidamada Itoobiya ku kalaheen tuulooyin hoos yimaada degmada Xudur ee gobolka Bakool, kuwaas oo la sheegay in markii dambe si iskood ah dib ugu soo laabteen. lama oga in howlgalkaasi ay ciidamada Itoobiya ay dad ku soo qabqabteen iyo in kale. al-shabaab ayaa inta badan weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ah ku beegsata ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay si toos ah u bixisay mushaharaadka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, iyadoo maalmihii la soo dhaafay si aad loo hadalhayay arrimo la xiriira mushaharaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo warar kala duwan ay ka soo baxayeen. ayaa waxaa arrintaasi war ka soo saaray wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Colaad Rooble oo la hadlayay warbaahinta ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada diiwaanka rasmiga ee wasaaradda gaashaandhigga ku jira ay si rasmi ah u qaataan xuquuqahooda, waxaana uu shaaca ka qaaday weli in ay socdaan tirakoobka iyo diiwaangelinta ciidamada si markaasi mushaaraadkooda ay ugu dhacaan akoonnada ciidamadaasi ay leeyihiin. askari walba oo diiwaangelintiisa la xaqiijiyay waxa uu qaataa mishaarkiisa oo si toos ah loogu shubo koontadiisa bangiga. sidoo kale waxaa loo bilaabay in $30 oo ka mid ah koontadiisa raashinka askarta si toos ah loogu shubo koontada uu askarigu bangigiisa ku leeyahay marka la xaqiijiyo diiwaangelintiisa. ciddii la diiwaangeliyey ee aan weli helin xuquuqdooda bilaha waxaa ku socda xaqiijin rasmi ah. diiwaangelinta ciidanka weli waa ay socotaa, waxaana la rabaa askari walba ee la diiwaangeliyey in uu ku sugnaado goobtiisa shaqo. inta ay socoto diiwaangelintu waxaa laga codsan doonaa ciidamada qaarkood in ay yimaadaan goobo ku dhow goobtooda shaqo sida kuwa Dhanaane oo lagu diiwaangelin doono Jasiira, kadib ay dib ugu laaban doonaan goobtooda shaqo. ciidanka ay diiwaangelintu ku socoto waxaa la wargelinayaa in askari walba uu heli doono xuquuqdiisa oo buuxda marka ay dhammaato diiwaangelintu. dawladda Soomaaliyeed waxa ay ku guuleysatay in ay si joogto ah u bixiso mushaaraadka askarta 2 sano ee la soo dhaafay, laakiin 2 bilood ee ugu dambeysay lagu mashquulsanaa diiwaangelin iyo xaqiijin rasmi ah. dhinaciisa abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawa Yuusuf Raage oo isna ka warbixiyay arrimaha la xiriira diiwaangelinta ayaa ugu horreyn shaaca ka qaaday muhiimadda ay leedahay diiwaangelinta ciidamada iyo weliba wasaaradda gaashaandhigga in ay la socoto tirakoobka ciidamada iyo xuquuqahooda arrimaha ku aadan. waxaa muhiim ah meesha loo socdo iyo ujeedooyinka laga leeyahay diiwaangelinta, taasoo waxa ugu muhiimsan ay yihiin askari kasta oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu mushaaraadkiisa iyo xuquuqda uu leeyahay uu ku helo hab account ah. taas ayaa gundhig u ah meesha loo socdo iyo ujeedooyinka dabcan ay soo bilowday ii sheegay hawshan ay u bilaabatay ayadoo hormuud ah wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya. meel fiican uu soo gaaro runtii waan ognahay. caqabado badan iyo culeysyo badan way jirayaan sababtoo ah waxa lagu shaqeynayo waa systemkaasna waxyaabo qaladaad ah iska imaan kara. taasna waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala iyadana waqtiyada dhow in la xaqiijin doono oo ii sheegay la sixi doono waxyaabaha yar yar ka qaldan, laakiin runtii waxaan dhihi karnaa boqolkiiba 80 waxay noo soo gaartay meelo macquul ah noo soo gaartay. meelaha dhiman iyo ii sheegay colalka dhimanna
waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala aydan inay si habsami leh oo wanaagsan ay kusoo dhammaan doonto diiwaangelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku aadan si mushaaraadkooda aan loo musuqmaasuqin isla markaana ay ugu dhacaan akoonno iyagu ay leeyihiin iyadoo aanu cid kale gacantooda la soo marsiin ayaa waxaa horay dawladda Soomaaliya ay ugu mudatay ammaan ballaaran oo kaga timid beesha caalamka waxaana ay qayb ka tahay bogaadinta beesha caalamka dawladda Soomaaliya ay ugu jeediyeen in dhinaca musuqmaasuqa wax badan ay ka qabatay isla markaana tallaabadan ciidanka dawladda Soomaaliya tira koobkooda lagula soconayo xuquuqahoodana ay gacmahooda ugu dhacayso ay ka dhigan tahay la dagaalanka musuqmaasuqa taas oo meesha ka saaraysa cabashooyinkii ka soo yeerayay ciidamada ee la xiriiray in ay jiraan saraakiil mushaaraadkooda loo soo mariyo kadibna musuqmaasuq kula kaca